is-afaham waa xoogan ayaa ka dhex jira siyaasiyiinta koonfur galbeed gaar ahaan gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo isku dhinac ah iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif sakiin iyo maxamed mursal gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo isagana isku dhinac ah ayaa isku fahmi la safar la filayo inay ku tagaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soo dhawaada saaxiibayaal xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed doorashooyinka la filayo inay halkaas ka dhacaan iyo sidoo kale walaac xoogan oo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweyne laftagareen ay ka qabaan tegitaankooda baydhabo ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa ee soo dhawaada saacadihii la soo dhaafay waxaa villa Soomaaliya kulamo gaargaar ah uu ku dhaxmaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe kaasi oo la filayo amaba ay kaga hadleen kulamadoodaas arrimo la xiriira siyaasadda koonfur galbeed iyo sidii kalsooni buuxda loo gelin lahaa shacabka reer koonfur galbeed iyo guud ahaanba siyaasiyiinta jooga magaalada caasimadda ee Muqdisho ee weliba muxaafadka iyo mucaaradka isugu jira inkastoo madaxweyne laftagareen uu la kulmayo cadaadis xoogan oo dhinaca siyaasadda ah gaar ahaan arrimaha doorashooyinka haddana waxa uu qaatay go'aan ah in siyaasi kasta oo mucaarad ku ah maamulkiisaas isaga oo aan ogolaansho ka haysan uusan ka degi karin magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa wararka aan helnay iyo xoguhu ay sheegayaan in kulamadii ka dhacay villa Soomaaliya la isku afahmi waayay oo madaxweyne laftagareen uu qaatay go'aan ah qof walba oo tegaya magaalada baydhabo uu isagu ka warqabo haddii uu isku dayo inuu si xoog ah ku tagana ay mas'uuliyadeedu cid kasta oo halkaas geysay siyaasigaas ay qaadayso waxa sidoo kale jira is-afaham waa kale oo ka dhaxeeya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shariif sakiin oo isagana ahaa madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed oo labadoodaba ah dadka ugu cadcad ee xilligan ku wajahan magaalada baydhabo sidoo kalena doonaya in halkaas ay ka bilaabaan olole ay ku doonayaan in kursiga ugu sarreeya ee maamulkaas ay ku fadhiistaan midkood laakiin ma jirto ilaa iyo hadda qorshe cad iyo sidoo kale jadwal rasmi ah oo laga dejiyay safarkoodaas iyadoo culays xoogan uu ka jiro dhinaca madaxweynaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen haddana waxa wararku ay sheegayaan in siyaasiyiintu mucaaradka ah oo weliba garabka villa Soomaaliya ay isku biirsanayaan sidii halkaas ay u tagi lahaayeen xitaa haddii aysan teginna abaabul ka dhan ah madaxweyne laftagareen ay kaga bilaabi lahaayeen magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed oo saddexda gobol ka kala tirsan shabeellaha hoose baay iyo sidoo kale bakool horay waxa uu jiray in xasan eelaay oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweyne laftagareen ay isku qabteen magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dhinaca maamulkaasi koonfur galbeed iyaga oo xaaladooda xitaa ay gaartay heer gacanka hadal leesla gaaro laakiin ma aysan dhicin ugu dambeyn villa Soomaaliya ayaa la tilmaamay inay kala dhex gashay oo weliba ugu horeeyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya halkaas ayaana lagu xalliyay khilaafkii soo kala dhaxgalay Muqdisho ayaa la isugu yimid madaxweyne laftagareenna waxa uu si gaar ah ula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya sida ay xogta ku helino ila ka agdhow oo weliba kuwa muhiim u ah arrimaha koonfur galbeedna u dhuundareela ay sheegeen in arrimaha laga wada hadlay ay ugu horeeyaan doorashooyinka ka qabsoomaya maamulkaasi koonfur galbeed iyo sidii madaxweyne laftagareen mar kale uu u soo laaban lahaa laakiin waxa ay inta badan villa Soomaaliya ka dadaalaysaa sida xogtu ay tilmaamayso inuusan laftagareen ku soo laaban kursigan oo midkood la geeyo shariif sakiin ama maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ama xitaa sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo isagu laftirkiisu ka mid ah siyaasiyiinta la filayo in halkaas ay isu sharxaan gaar ahaan kursigan golaha amaba dhinaca maamulka koonfur galbeed kulamadii gaargaarka ahaa ee villa Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne laftagareen u dhaxeeyay sidoo kalena villa Soomaaliya ay garsoor u ahayd dhinacyadan ayaa la sheegay in wax natiijo aysan ka soo bixin oo hadda la isku diyaarinayo kulamo kale oo la isugu yimaado sidoo kalena ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa eedeemo xoogan u jeedinaya madaxweyne laftagareen waxaana ay ku eedeynayaan isaga oo waqtigiisa ka dhamaaday sidoo kalena aan sharciyad ka haysan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan villa Soomaaliya iyo guud ahaan bulshada maamulkaas uu haddana joogo cadaadis xoogan ku hayo siyaasiyiintooda waxaase ay sheegeen inay diyaar u yihiin si kasta oo ay ula dagaalami karaan madaxweyne laftagareen inay halkaas ka saaraan maadaama xilligan awoodda koonfur galbeed isagu gacanta ay ugu jirto sidoo kalena madaxweynaha maamulkaas isagu uu yahay
lama oga sida uu ku dhamaan doono maalinimadii sabtida ahayd oo shalay ahayd ayaa la balansanaa inay baxaan siyaasiyiinta laakiin culays ayaa yimid iyo dib u dhac kale maanta ayaana la filaya inay kulamo dhacaan ilaa iyo caawa waxaa birita la filaya haddana safarkan haddii ay suura gasho oo loo ogolaado inay siyaasiyiintan baxaan oo dhammaantooda tagaan magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed haddii culays kale uu ku yimaadana waxaa loo ballami doonaa kulamo kale oo looga hadlayo sidii halkaas ay u tagi lahaayeen markii ay tagaanna waxaa dhici karta inay halkaas kulamo ka bilaabaan oo weliba abaabul ka dhan madaxweyne lafta gareen cabsida ugu weyn ee madaxweynuhu uu qabo ayaana arrintaasi ah in magaalada Baydhabo oo hadda aysan cid mucaarad ah kula sugnayn goor dambe marka ay tagaan siyaasiyiintan ay Koonfur Galbeed gasho isbedel siyaasadeed iyo kacsanaan siyaasadeed maadaama hadda ay tahay mid degan oo maamulkaas gaar ahaan magaalada Baydhabo ay kaliya ku wada sugan yihiin siyaasiyiin muxaafada oo garab u ah madaxweyne lafta gareen wuxuu ku soo koray saaxiibayaal barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbi doonaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha